بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah anigoo ah amiir maxamed siciid waxaan maanta halkan aan doonayaa inaan raaligelin iyo xaal boolojiisa aan ka bixiyo hadal ka soo yeedhay beeshan aan ka tirsanahay oo baraha bulshada ku xidhiidho la soo geliyey waxaan xaal siinaynaa boqor cusmaan oo maxamed buurmadow boqor waxaanu ku leenahay xaal qaado hadalkaas oo u dambeeyay beeldaajo xandulle ka soo yeedhay oo fariin khaldan loo geeyey ayaanu xaal ka bixinaynaa boqor markii hore dagaalku keligii buu ku socday dulqaadkeedu lahaa iminka waxaad mooddaa in beeshay usoo daadegtay oo la doonayo furfur iyo nacayb in la abuuro beeshanna way ka ballaadhan tahay intaa mahmaha ingiriiskaaba waxayd beriga ingiriisku joogay ayaa waa la isriixi jiray laakiin dhaqanka kuma marhnayn dabeed wuxuu la yidhi habar jeclo waa sidan waa dad yar iyadoo dagaal socdo oo dabeed wuxuu ogaaday xogtii dabeed wuxuu habar jeclay ilaahayna waa israacday intii kalena soomaali waa israacday buuri markaa boqol xaar baanu ku siinay xaal golojoogaanu ku siinaynaa magaaladii waa lagu sugayaa dadku waa kuu heegan waxaan aada iyo aada iyagana u tahniyadaynayaa guddida habar jeclo oo ilaalinaya oo har iyo habeenba usoo taagan una feejigsan in maaragtay dheelitirnaan ama maaragtay colays dhaco ama maaragtay faquuq dhaco iyagana aada baan u hambalyeynayaa boqorkana waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad arrinkaa beesha kaa soo gaadhay xaal ka qaado maalintii u dambaysa waa xasuustaa boqorka hawl beeshanu leedahay buu ku jiray oo uu waday marka boqorku waa boqorkii geeska africa waa boqorkii africa waxaan doonayaa dadka inaan u yar iftiimiyo war horta buurmadow ma taqaanin boqorku waa boqorkii africa isku qabsadeen qandaafi markaa qandaafi uu yaqaanay geeskan africa iyo madaqadan aynu ku nool nahay beeshan weliba waa reerka ugu badnaa libiya ka shaqayn jiray oo sideetamaadkii jaaliyadda uu la kulmayba markaa wuxuu yidhi waniga ku-xogeenkayga qaado markaa hadday canjarafayn tahay hadday xadhig tahay waxba waa looga qaadi waa maanta waxaad mooddaa in hawshii la casriyeeyey markaa boqorku dulqaadkeedana waa leeyahay xaalkaasaan maanta wadaa boqor xaal baan ku siinay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu